gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa lagu dhuftay isgoyska Ex Control ee magaalada Muqdisho halkaasi oo ay ku sugnaayeen ciidamada ammaanka isla markaana laga soo galay magaalada Muqdisho. Isgoyska Ex Control Afgooye ayaa waxa uu yahay isgoys aad u mashquul badan isla markaana gawaarida ka timaada Afgooye iyo kuwa Muqdisho ka baxay intooda badan ay maraan. hase yeeshee qaraxa ka dhacay isgoyska Ex Control Afgooye ayaa waxa uu saameyn ballaaran u geystay dadka shacabka ahaa ee maraya wadadaasi iyo kuwa ku sugnaa. sidoo kale isgoyska Ex Control Afgooye waxa ku yaala goobo ganacsiyo aad u tiro badan. intooda badan qaraxa ayaa saameeyay guud ahaanba wixii halkaasi ka agdhawaa oo uu burburiyay qaraxa ka dhacay isgoyska Ex Control Afgooye ee magaalada Muqdisho maanta. hase yeeshee waxa goobta soo gaaray ambalaasyada gurmadka kuwaasi oo daldalay ama qaaday dadkii uu saameynta ku yeeshay qaraxa ka dhacay isgoyska Ex Control Afgooye. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho oo warbaahinta kula hadlay halka uu qaraxa ka dhacay ayaa faahfaahin ka bixiyay sida ay wax u dhaceen. maantay oo ah maalin sabti ah dabayaaqada bisha December waxaa ka dhacay Ex Control qarax weyn oo saaran lagu soo raray gaari xamuul ah. qaraxaas waday wuxuu isku qarxiyay isgoyska Ex Control Afgooye wuxuuna sababay dhimasho badan iyo dhaawac fara badan. dhimashada tiro rasmi ah ilaa iyo hadda ma hayno. dhaawacu waa 9 sida hadda ay noo sheegeen goobjoogayaashii. tirada dhimashada oo rasmigaana gadaal ayaan ka ogaan doonaa laakiin ma yara. dhimashadaas waxay u badnayd arday u socotay dugsiyadaha iyo jaamacadaha. number weyn ama tiro badan oo ardayda ah waxay ahayn jaamacadda Banaadir. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. allah u naxariisto dadkaas ku dhintay halkaas waxay ahaayeen dad aan waxba galabsan, shacab rayid ah intooda badan. waxaa laayay dadkaas dhagarqabayaasha ku soo duulay dalkeena Soomaaliya. ma aha markii ugu horeeyay oo ay qaraxa noocaas oo kale ah ay la beegsadeen. mar kasta oo ay arkaan meel zaxmo ah ama bulshadu isugu badan tahay waxa ay ka caado dhigteen inay sidaas oo kale ay u laayaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan ka magan galnay shartooda. bulshada Soomaaliyeedna waan hubaa inay kala garteen cadowgooda iyo saaxiibkooda. waxa aan halkan rabaa inaan uga mahadceliyo ciidamadii amniga ee shafka u dhigay ka badbaadiyey dhagarqabayaashu hagardaamada ay soo abaabuleen inay u gudubto magaalada. waxa ay doonayeen magaalada inuu u soo gudbo qaraxa si goobo muhiim ah iyo mas'uuliyiin muhiim ah oo u baabi'iyo. aad iyo aadaan uga mahadcelinaynaa. waana wixii ay u qaateen tuutaha iyo qoriga inay khatarta shacabka Soomaaliyeed soo gaari lahayd ay ayagu xabadka u dhigaan. allah subxaanahu wa tacaala ayaa uga baryaynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo dadkii Soomaaliyeed ee halkan ku waxyeeloobay. wiilasha naftood hurayaasha ah ee u taagan har iyo habeen ka shaqaynta amniga iyo ka hortagga cadowga noocaas oo kale ah waa uga mahadcelinaynaa waana garab taagannahay biidnillaahi alkariim. intaas ayaan rabay inaan idhaahdo halba sida ay wax noqdaan tirada dhaawacyada oo rasmi ah iyo tirada dhimashadaba mar dambe ayaan la wadaagi doonaa media. wabillahi tawfiiq. wassalaamu calaykum. goobjoogayaasha ayaa waxay sheegayaan in qaraxa ka dhacay isgoyska Ex Control Afgooye lala eegtay ajaanibtii dhisay wadada isku xirta Muqdisho Afgooye. halka kuwa kalena ay sheegayaan in qaraxa lala eegtay bar control oo lagu qaado canshuurta dawladda oo ku taala isgoyska Ex Control Afgooye ee magaalada Muqdisho. qaraxa ayaa inta badan waxa uu saameyn u geystay dadka shacabka ahaa ee ku sugnaa wadadaasi.
farxaan maxamed xuseen idaacadda kulmiye muqdisho.